gelin waxa aan insha Allah aynu furanaynaa munaasabadan iyada ah oo ah xus aynu qabanay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye nin weyn oo ilaahay baa weyn Soomaaliya oo ku weyn oo abwaan ahaa oo taariikhiyan ahaa oo ahaa visionary ama waxgarad iyo intellectual ahaa oo laga geeriyooday bishan kowdeedii u sameeyay xuskan ilaahay oo naxariistay waa abwaan Maxamed Xaashin Jamac Kaafiye marka aayado quraan lagu furo munaasabadan iyada Ibrahim عبد الله الشيخ عمر. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر ذنبه يا رب العالمين واسع مغفرة. اللهم ارحم جمعنا وجميع المسلمين جميعا. اللهم اهديه اللهم احسن مقامه. اللهم ارفع درجاته. اللهم ارحمهم وارحمنا بعضهم يا عزيز يا كريم. إلهي نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا ذو الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا وارحمهم. waxaan isugu nimid in xuska ninkaan ku qaaliga ahaa inaga iyo dadka Soomaaliyeedba wuxuu ahaa nin taariikhda nin isagoo kale u malayn maayo inuu ku jiro dadka imika nool waxa soo socdana ilaahay baa inuu muxuu ahaa horta laakiin aniga waxaan u malaynayaa intaan nool ahay inaanan isagoo kale ku doonin wuxuu ahaa nin aad iyo marka iyadoo caawur laga sheekay doonin halkan u fadhiyay taariikhdiisii soo koobno intaan ka soo koobi karno iyo taariikh nololeedkiisii oo kaliya maaha mawaaqiiftiisii suugaantiisii sooyinkiisii imikana waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka bal hadda suugaan notary baasha Samaal shaqada yar oo kale gali maayo laakiin maasada yar oo waqtigii maalintii geerisa nala soo sheegay aan ku taxsiiyey oo aan ku qoray aaladda Facebook-ka ayaan xawaanuna halkan ka soo jeedinayaa waxaan rajaynayaa kulli qofku markuu dhinto waxa ugu khayr badan in loo duceeyo laakiin ammaanta iyo haddii la sheego taariikhdiisa intuu qofku nool yahay bay anfacaysaa marka ducada ayaynu kulli badanaynaa kulligeen maasadana waxaan kusoo gabagabeynayaa duco insha Allah anigoo maadaama uu suugaanyahan ahaa suugaanta caan ku ah aan damcayna suugaanta ugu duceeyo ama tixda maasadii aan ugu duceeyo marka insha Allah waan noo bilaabayaa maasada waxaan ugu magac daray waa xuskii ama taxsiin Maxamed Xaashin Jamac magaceedana waxaan u bixiyey xaqdiri taasoo ah waxyaalaha ku xuso anigu mujaahidnimada ama suugaanyahanimada xaqa ruuxa diin leh waa mid uu xasuusto xukunkii ilaahiyo qadar baan xil reebinay adoo lagu xaakimay inaad mawd u xilan tahay ayaad xagal ka daacdaa xanta taa ilmaysaa xilligiini doorkiyo xeru dhalanka caanka rabbigay xijaabsado aniguna xuskaygii damal xidida weyn iyo xidig nuur ayaa dhacay laybareeri baa xalay gubtay xaafadeenno xulad iyo dabbaa galay laybareeri baa xalay gubtay xaafadeenno xulad iyo dabbaa galay waa marxuun xaqii helay xilligii si dheelmaday lagu daray xabaalaha taariikh xil weyn iyo
xidhiidh buusan mudan yahay taariikh xilweyn iyo xidhiidh buusan mudan yahay 4 xaaladoodoo ku xasuusanahaybaa xa'da aan ka qaadiyo ilaa eeg xaajada xilkasnimo aqoon-yahan xeerbeegti odaynimo xaqudirir wadaninimo xikmad iyo murtilaah xayndaabka dhaqankiyo afka xiisihiisii xeeldheere macallina xogogaan idheeroo dulligiiyo xifdiga nacaa iyo qaranka kiixda ergo xaajadeedii garyaqaan ku xeel dheer ku xukumo siday tahay xamxam iyo dar hoosiyo xandar baa ku sheegee xamxam iyo ladh hoosiyo xandar baa ku sheegee wuxuu kaga xariiraa miidaanka xarunta afartaa xil iyo bogid xurmo iyo tilmaanteed xaq mid loogu leeyahay oynu xayl u wada nahay ayuunbaan xisaabshay miyaan xaajo beeniyo ugu daray xifaalay waxaa lagu xasuustaa cilmiyahan xadaariya xidig qaaradaha maray xidhiidhkii af iyo dhaqan xilligaa ka marakaca inuu xarunta reer yurub looga xiiso weynaa waxaa lagu xasuustaa xidaar hoga kaliilee xilligiiyo dabaylaha ka xansado maluugto xafanaha cojiidhiyo halkuu dirirku xalay maray inta uu xisaabsado sabanadii xumaa iyo xilli hore la kaashada inta xididku igu jiro xikmaddiiyo tixdiisii waa mid aan xasuusnahay xaaleeyo dulucdiyo waxay xeerinayso anigaa xilkeeda leh xaaleeyo dulucdiyo waxay xeerinayso anigaa xilkeeda leh afartaa xaqiijaya ina xaashi dhamaco ducaanku xawilaya maansada xusuusta iyo ducadaba xambaarsan haddii aynu ka faa'iidaysanayna baa la yidhaahdaa dadka xikmadda leh aynu ka faa'iidaysanay suugaamaheena iyo xikmadaha ku jira waxyaabo badan oo iminka naga qaldan baa hagaagi laha baa la yidhaha marka ay hobinaynu aada u dhegaysanay maaragta waxaan xusuustaa maansuu tiriye allah yarxame gaariye oo ahayd maansadii uu Mandela ka tiriyey 1982 ayaa halkan lagu turjumay deetana waxaa loo turjumay ingiriisi deetana ninkii ingiriisiga ahaabaa wuxuu ahaa ninka ingiriisiga markaa loo turjumay nin ingiriisa oo aanu soomaaliga garanayn baa maansadii loo turjumay xaraf baa loogu turjumay deetana inuu gabay ingiriisiga ka dhigay deetana markuu gabay ingiriisiga ka dhigay anigiiba xitaa dhadhan kale ila yeelatay ninkiibaa wuxuu waxaan jeclaan lahaa inaan beri horay intuu Mandela xidhnaa aan gabaygaas oo kale helay aan helo turjumaan jeclaan lahaa buuri markaasaan ku nidhi la kaftano berigaasaan ku nidhi ninka soomaaliga uu ka tirinayay maansadaasi uu tirinayay prime ministerkii ingiriisku Mandela wuxuu ku sheegi jiray terrorist gaaladii baa wada soo yani waxaan tusaynay maaragtay in deerida qofka Soomaaliyeed iyo magaranaysa ninka macallinka ah lecturer ka ahaa la fool gabayga u tirinayay Mandela prime ministerkii Margaret Thatcher ayuu haysatay inuu yahay nin muxuu ahaa argagixisa iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka maxamed cawad ismaaciil oo allah yarxame ay marxuumkii soo wada mareen muxuu ahaa halgankii maxamed wuxuu ahaa taliyihii guutadii sayid cali la oran jiray waa ninka bidixda iga fadhiya marka isaga kusoo dhaweynaya mikrofoonka iminkana mujaahidka halgama ahaa ee abwaanka ahaa ee qaaliga ku ahaa Somaliland iyo cid allaale cid af Soomaali ku hadasha kaalintiisu waxay noqon doontaa kaalin waqtigan xaadirka ah aan la buuxin karin laakiinse ma odhan karo buuxsan mayso saddex qaybood baan u kala qaybiyey aqoontan gaariyo lahaa oo midda hore iyo gacanta hawsha uu ku hayay markuu dhintay iyo sidii hawsha uu gacanta ku hayay aynu uga sii ambaqaadi lahaa gaariya intii aan halganka wada joogno wuxuu ahaa nin aftahana
oo meelaha marka ay nagu adkaato aan u yeelano oo maanso ah ku solfka ku dhameeya mashaakilkii halganka aanu kala kulmayna mar walba waad garan kartaa duruufaha halganku dad hubaysan oo aadan mushahar siin oo aad u dirayso inuu wax soo dilo ama la dilo kulley ma hawl yaraa mar walba friction uu jiray mar walba marka arrintaas kale ay nala kulanto ee qas nagu kaco ciidamada abwaanadu kaalintoodu waxay ahayd inay xadridaan maahan inay suugaan ku xalliyaan mashaakilkii marba na soo food saarayay gaarihii wuxuu gacanta ku hayay markii maalmihii uu dhiman doono in uu ku taariikhdii halganka lagu qoro national curriculumka isaga iyo samson cabdi aadan wasiirka waxbarashada ee somaliland arrintaasi gacanta ku hayay waayo caruurteena generationka soo kacaya ma garan karaan lixda wuxuu ahaa ma garan karaan maxamed cali wuxuu ahaa ma garan karaan halganka wuxuu ahaa waxa aan markaa u soo jeediyey madaxweynaha aan isku afgaranay in wasiirka iminka halka inala jooga aanu soo dhiibo sidii laysugu waafajin lahaa halgankii iyo national curriculumka waa buuggan la daabacay ee caruurta iskuullada lagu baro manhajka marka ilmihii waxaa lagu ababeynayaa taariikhdii halganka xasuuqii dhacay oo iminka evidenceka aynu hayno xabaalihii laga soo saaray dadkii oo la sawirayo oo la leeyahay kuwaasay ahaayeen dadka dilayay dadkaasay laayeen halganka snmna kuwaasuu ka horjeeday oo ay sida u darsaan waayo nin ka sheekeeya taariikh ma garan karaan laakiin marka la yidhaahdo waa kaa evidencekii halkaa marka doctor intaasoo 100 qof baa lagu dilay waa kuwa halkaana snm baa joogtay waxaasay loo dagaalamay markaa way xusan karayaan marka waxa aan leeyahay hawshiisii way hor taallaa ilaa inta aynu muxuu ahaa ka qadiyadeena ka gaarayno waa hawl maanta nin walba haw halka fadhiya iyo nin walba maqanba ina garba laga saaro intaasaan kusoo gabagabeynaya horta waxaan ku wareejinayaa caasha luul oo ah qofa tviyada ka aragteen suugayahana wax badan ay wadaagi jireen allah yarxamه marxuumkii marka caasha luul waxaa kusoo dhawaatay marxuum salaan kadib dee kulley waxaynu joognaa tacsiib waxaa inaga baxay garab ka mida garabada somaliland iyo ummadda afka soomaaliga ku hadashoo dhan ay higsanayeen oo ay tirsanayeen ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo maanta ducuu inaga mudan yahay waxba uma qaban karno kale inaynu ilaahay saxda qofkii inaga qabanayo ahaa tiirkaana ku tirsanahay uu ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo samriye imaanaha inaga wada siiyo dhammaanteenba godkana ha u noolo kumaan soo talagelin runtii wax sugaanay markii anigu aan maqlay geeridiisa waana shoog baa igu dhaco wax hadalba igama soo bixin waxba kamaan odhan waana aamusnaawo laakiin suugaan ka horreysay baa jirta oo aan mar hore sameeyey oo dee isaga aan ragga aan kaga hadlayay suugaanta uu ka mid ahaa ama lafdhabartiisii ahayd mar aan ka tirinayay calanka somaliland inay ka tirinayay ayaa waxaan calanka aan u tirinayay ayaa in yar baa ku jirtay oo aan kaga hadlayay abwaanadii usoo halgamay abwaanado dhan ma ahayn waxaan lahaa abwaanadii dambiilaha murtida dhinaacda saydayay dhawaaqeeda suugaantii galowgu ilaabay iyo shacabkii kuu dhiidhiyey dhigayay maalkooda dhagaxa iyo ciid iyo haddaan iruhu kuu hiilin dhaaya hawroon oo miyaad dhalan lahayd caawa yacni abwaanintaas isagu abwaan keliya mu ahayn mujaahid buu ahaa kusoo naftiisi iyo maalkiisiba usoo huray abwaaninta tiirka noogu dee la tirsadee somaliland ay tirsadaanna uu ahaa
ee af iyo adin iyo gacan iyo qori iyo meel wax walba u horay buu ahaa hadal kolley hadal badan waa la yidhi taariikhdii abwaankana waa laga hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyaan leeyahay tahay in goluhu suugaanta ku badato waxa weeyaan waa iska dee waaqici because ninkaa suugaanyahan ahaa inkastuu dadka wax badan la wadaagayo dee macallin buu ahaa ababiyuu ahaa wuxuu ahaa nin intellectual visionary buu ahaa waxaan ka xusuustaa mawaaqiiftiisa habeen nooga sheekeynayey allah yarxame isagii hadraawi markii ay habeenkii ay kasoo baxayeen xamar laba nin oo saaxiib yihiin ayay u sheegeen dadkii dad ugu dhawaaye yani family markay noqoto umay sheegin laakiin mowqifka laba nin oo ay isku mowqif ahaayeen ay labadiiba u sheegeen masalan waanu baxaynaa caawe maxaa idin talaa labadiinaba way soo raaceen waxay la soo galeen muxuu ahaa jibadii nin allah yarxame waaba ku dhintayba yaasiin axmed nuur allah yarxam araaximiin oo reer laascaanooda iyo faarax cali faarax yaajaa oo reer puntland bay ahaayeen xamar baa la joogay way soo baxayeen halistii jirtay baynu ognahay halka ay taagnaayeen raggii ay isku rabaca ahaayeen si wax wada arkayeen bay u sheegeen oo waanu baxaynaa aynu isla wada raacayna yaasiin iyo faarax ba islamtay soo galeen oo yaasiina waa geeriyooday الله يرحم الرحيم كل كي دلك الله قطعي سووا وسيلة ويقال لك الدوبي نك الله يلا فرح علي أو فرح قبلته كم عبيرنا وحاول شو غاي من كندا. تاريخ وحن وكنت لبنان ملاينية محمد باشا مرتي أيام تاريخ فضي مركان تايور مرن وهذا خصوص طوام موقف عادي النوبل وقفها مبدأ هيدا إن العلم بكور يسيسو وما ركت حتى لو ذاك تخطرت هي الرزق واحد كل شيء يسا قف لماذا هي شخصيته وقف كلها وحين كل قرينا يعني حتى ناس وقانتي بين كل دبوير قرينا دمر كون صلى الله عليه وسلم هدي لها يكرجو عبد الرحمن أبي سو هبينكي جريس الرأس الشيعي يسوون ما نسو إسلام الكيبا يروها وترى يمكن كيري قري ونين دليره وسوقانتي كمالة قروي كدليره هذا بيشيل كميدا أيام الدنيا التلفون كي مكانه حاشي دمع قارين وضواني وين ودمانتين كبحي ومدى ويحاب سومالي بعض الشام عد كارا كمو بحين عد قولي كمو بحين وحاو كبحي عدي أب سومالي بعض الشام ديوانا جد لو دي سوغي وواح كليا وحا هو جيري كودي يقول وحا هو جيري كودي إفكي بيقولش يسهولتي هو قلبنا البواشل على ما صدقني من حسد عن الرضا إلهي هون حديثه وندعينا أنا محمد حاشي جماعة تاريخ لما بلاقين نرشة أنتي أنا وإحنا قاضي عن عقلية استين سوقات الصدق قلنا دي قربها البنشومي أنتي كل سنة دينا يربان هاي سكول هذا كل كتير كبير ديسا لكن ده تحرع يو سوقات ديسا يو قفك أو أها inta lagu sheegi karo lagu dhadhasan karo waan ka hayaa inuu weyn baa baxay ilaahay ha u naxariisto habeenkii markii aan geeridiisa maqlay waan yahay waxba badan ma odhanin habeenkii dambe ayaan tixyar tiriyey waxaan xasuustay tix la yidhaahdo dabaqyo xasuus oo cabdillaahi suldaan tima cadde uu u tiriyey allah u naxariistay markuu geeriyooday anigoo u arkayay uun gaariyo halkuu cabdillaahi suldaan tima cadde berigaa ugu jiray ee ugu dayanayay rol modelka ugu ahaa inuu daarigana gaariya ugu ahaa gaariya anigoo wuxuu ahaa dadka suugaanta soo geliyey ee jeclaysiiyey macallimiinta taxsoon baan idhahdaa isagii hadraawiinta la idhahdo waxba ku dheeraan maayo waa laiga aqoon badan yahay maxaad baashaa jooga dad badanoo gaariyada aqoon shakhsiyaad gaaroola baa jooga dareen yahow gibilka tuur heeryada guudkaaga saaran haddii gaariya la sheegay hataa hingaliilyadii garwaaqso inuu god galay jiiftada ku gufee xanuunka gaadhsiiya aagga galarka gilgila maasoy tubaaxi gadood diilada ka gubow adoo geeridu xaq weeye gariifin wadkaa ku yimid ku gurud maasada xasuus raggii ku galdaadin jiray waxaa koy geesi weyn haddaad gabayo utis qaaday haddaad tahay geed magoolay gooyaha fidiyoo ballaadhay guntiyo jiriddaad ka faaftay raggii gantadaada taagay abwaangaari wadhaa afkii gobol baa ka dhacay aleelahe garabyo beel geestuu kaga jiray bulshada halkuu gaariya baneeyey ciddii geli lahayd ma garan ayaa goldolooladeeda sidaan ugu fayn lahaa murtida guubaabadeeda geeraad igu sheegi doona
ayaa arar guunahay galaabaxa faalladeeda guura uu sii dhaban lahaa taluu soo migurin doona iyadoo garta la isku seegay gigtay xaajadu adkaatay maarana guurtidu u laaday ka maagay gocor xaqii ka dhigay nin in lahaa dhaqsuhu u garfayn jiro geedu fadhiyey runtaalle ayaa kala guri dadkayga siduu nacbaa ku raca gabbood ugu ahaa miskiinka gafkiiyo ceebtana u diiday gaashaan talow yaa u noqon cadliga u gargaari jiray hibashiye gacashoy iddaa kun gabay kuma sheegi karo shaksigu gaaray ahaay ducaan u galay balaamin allow ku gunnaya fardowsaa allow jannadaada sii allow gaariyo ku sor gudaha ilkiya xabaasha aroos iyo gaab ballaaran gashaantimo xuuraan cayna gulla ugu deeqa buwaka haddaan u goondandogo murtida waxaan u golleeyay caawa bulshay garashada ilaasho dangaaro qofkii ilaawey ugacay hawshaada guud gufee qabyadiisa taal intuu nool yahay u garo wuxuu geeye nolol ku sii haddaad goohdooda u oydo markuu galmado ku dhaafo abaal may guda ilmadu intaasaan ku yara baxay weligay ayaa allahay anigoo maaragtay isku dayin waxa gabaynayna ayaa maaragtay horta gaariyo waxa isku kaayo horreysay ayrashka markaynu ku qabanay xafladii 2006 u yimiday suuratu shucraa aanu akhriyay oo maaragtay tafsiiray maalintii baan anagu gaariyo habeen keliya taayaan isbaranay markii intaan wala cashiinay taasaa noloshii ugu horreysay dibna uma arag markii uu markaasi oo dhintay habeenkii sidoo aayada quraanka ku fasiray horta ayaa ka yaabiyay balaaqadiisa iyo luqadda carabi anu Soomaali ma laakiin carabiga balaaqadiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay ayaa markaasi mucjiso gelisay iyo sidoo markaasi anigoo 12 sanadood soo dhiganaya luqadda carabiga dad aanan maqaliyo ashcaartooda iyo Ahmed al-Farahidi iyo uruudka oo maaragtay miisaanka luqadda carabiga sidoo markaa u kala shaandheynay habeen kaliya ayaan ka faa'iideysto waxaan 12 sanadood madrasadii Sacuudiga ee Jabuuti dhiganay aan ka faa'iiday dibeetana markaasi uu dhintay markii la yiri aniga baa gabaya ku noqday waxaan yiri galigii Ilaahay hadduu moodku kugu gaaray geeridu xaq weeye gaariyo haddii ilkan ugu jiifshay malaa'ikta ilka kugu soo gasha gaariyo kuma guhaadshaane inaad galin naciima oo jidka siraab bardal wa salaama aad ku dhaafi ilaahay ku garasi rabbigi guurti ka dhigay horba hay'adana ku soo dhaweeyo amuun saciid cali oo gudidayadana ku jirta xaafadana ka tirsan qabqabiyaasheeda marka amuuna ku soo dhawaato bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu naxariisto Maxamed Xaashi Dhamac waynaga wada dhintay Soomaaliland qura kama dhimanin sida hore loo sheegay afka Soomaaliga wixii ku hadlo dhan buu ka dhintay talabaad wax halkiisii buuxinaya wax soo dhalan doona ama imika dee soo barbaaraya mooyaane ilamaha wax halkiisii buuxinaya maanta inuu jiro waayo intii shay uu ahaa ninba ma noqon karo abwaan buu ahaa professor buu ahaa mujaahid buu ahaa macallin buu ahaa macallinkii afka Soomaali buu ahaa waa ninkii sameeyay miisaanka gabayga saaray marka waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto waxaan garanayaa maalin uu joogay Somali Week uu yidhi amaahiya inta noolahay amaanta markaan dhinto amaanta waxba iima tarayso maanta noolahay amaan oo wixii tara baan u taagnaano waan ka xumahay horta nin walba uu dhimanayaa haddana ninkaaga wanaagsan inuu dhinto ma jeclid iyo qofka jeceshahay toon marka Allah u naxariistaan leenahay taariikhdiisii rag baa haya oo de ka sheekayn doona halgankii uu soo maray gobonimo doonkii wixii uu soo tiriyay siinleydii iyo intii kale gabayadii dhannayd iyo deelaydii dhannayd intaba rag baa hayo maanta dee kayd ku haya waxaan jecelahay inaan la ilaawin oo maanta halkan aan lagu xusinay buugaag la qoro oo ma garanaysa carruurteenna wax baranaysa loo dhigo Maxamed Xaashi Dhamac gaariye nin qaali ka baxay Somaliland iyo Soomaaliya afka Soomaaliga ku hadla
iyo Jabuutiba runtii Jabuuti noogu iman jiray uu ma garanaysaa miisaanka gabayga iyo af Soomaaliga ba halkaa aan ku arki jiray anigu talabaad nin kalena uu ka baxay Soomaaliland oo isna aad iyo aad qaali u ahaa Faysal Caabi Mushtaaq isna Allah u naxariisto intii dhimatay ee ka dambeysayna Allah u naxariisto way mahadsan tahay Amuul waxaan malaynayaa محمد باشو تاريخ في مجاهد كيلو السيد تفضل له قال يا نهري يا عمرو بلا ويقرا كسر ويلي مكان كسر وحن الدنيا ولا حكيت ولا كسر يا عمرو بلا عمرو كسر الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والله بدي كل لو هذا لي وحن يعني نحريص دون الله بديو إلهي الله بريوم بقفل يعني قبل تهاي مرحومك الله ونحريسته نحريستي كنا إلهي كورا يعني نقولين هاي أنا بتص شخصي هانا وأنا أقاني أو يعني هي مرحومك وذاك أنا ذوك علي بوها أو يعني هي هذا كل نفس ذائقة الموت بالله قف كستات عشرة ولا قاضية وانو لمنايا الحمد لله رب العالمين سبحان ما هذا إلهي سبحانه وتعالى أدومي سمرك وابوره يسقى أي درجات وكل سنة درجات مرك حياته كنا لينيا بعد الموت وما أنت طال وحن حسوسية هاي ومدو إلهي كارسية إلهي نوحن وقرتيني أو إنه جندي فردوسنا وقلت ياكو حن كاسو بين حياته هاي وحن كحسوسته وحوينا دير مركب وجرجة شوفه إلى أن أنت حافظة كشقيسة إلى قف جرجة من كله ووصلنا الله ونحرس محمد حاشي دمع 2008 كيلو جامعة هرجيسة وده تشوفني يعني أرضي مركب حكا كسوق قال إستقوا عن حصة أولى هين وحكستوا قبل يسرعي تبيع 20 أو أي هو الكوين هلا فلسطين هذا بالصعدان يعني هي لايبريريا مركب سوق قال أرضي سيكشري ترتي وحويان وحاصل لأنه هاي سوقان شعيل كل يوم هاي شخصية دي سايالة شعلا هو انترتين قرينا يعني وحن حسوسته نور لمرة نفسه دوينا حبلي يراي نمدي نفسه مال قرينا يعني هي سيدا يقول أفكي آدي فهمين النرويجيان كود هذا يبدن كود هذانا أي لهنا سيدا وور انترتين قرينا أما سيدا يعني هي body language كو استعماله أي حيسينية وما لنتين حفلة بدني لهنا رقمك حين كراعهوت taasina de wixii ilaahay gaarsiiyay weeyaan wax weey waa yaani ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonkiisa waa buuray de qof walba masiir buu leeyahay waxa weey masiirkiisuna maanta waxa weeyaan masiir jannadii firdawsana ilaahay aynu uga bariyayno adduunyadana darajada ilaahay ku siiyo maanta bacda mawtihi la xasuusan yahay lana xasuusnaan doono waxaan leeyahay in loo duceeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت قف كستون ولبود منيا لكن ما أنت واحد مي ديروين الله ونحرسته قف البود منيا وحي نلوج بونين يود عينه إلى هي قبل بهاون نورو استجي أنت لما تبى استجيو فيصل عمر الله يرحمه حبوا ميكلورين لبا أبوان وغالية لبا معلم oo dad wax bartay oo dadku aan u soo galin ma garanaysa farun guri aan ku imanin oo agoon ku noqonin oo dad mutacallimiin wax bartay ay ahaayeen Allah yarxamo qof mutacallin iyo qof kastaana uu dhimanaya naxariista jana Allah ka waraabiyo anigu waan joogay Faysal geeridiisii hargeysa waxbaan ka aasanay waan ogeyn naxariista jana ka waraabiyo soo wanaagsan baa labadoodaba loo aasay gaariyan waxaan ku xasuustaa anigu wuxuu la joogay Germany oo in badan gurigeyga igula noolaa ilaahay naxariis janaa ka waraabiyo oo la sheekaystay oo la kaftamay wax loo cunay oo aad soo naqaan soo garanaynay qof waro bini'aadam qof yar iyo qof weyn ixtiraamka iyo qadarinta iyo wuxuu siinayaa diyaarto waxaan xasuustaa inay yaro anigu aan dhalay oo doonaysa maanta halkan ka hadasho laakiin si wanaag aan u suura galin oo shan jir ahayd oo inta ku xayo meelaha beeraha iyo inta la soo maro ayuu yiri ilaahay uu naxariistay marka lagu soo soo sheegay waxba ka qoraya kulli waqti waa laga heli doonaa in wax ka qoray ixtiraamka uu noo hayo dadka caruurta yaryar iska daa dadka waaweyn iska daa sida caruurta yaryar uu ixtiraamo qof walba qadarintiisa siinayay buu ahaa haddana qadarkii ilaahay baa dhacay allah uu naxariisto inagana samriyeeman ilaahay naga siiyo assalaamu calaykum intii gaariyada inaan ku arko meelaha mooyaan laakiin aqoon gaar ah ismaanu lahayn waxaan
dee aqaanay sugaanta iyo shaksiyadiisa siduu u dhaqmi jiray runtii oon jeclaa. wuxuu ahaa nin fara badan oon qabiil lahayn, tixo badan buu ka tiriyey. marka waxaan aada iyo aada u jeclaan jiray sida uu qof kasta dooni jiray inuu u raaligeliyo. uu ahaa qof dadka jilicsan, ku meel dhexaada, mid yar mid weyn mid kasta la fadhiista oo la qosla oo u sheekeeya oo ka dhagaysta wuxuu doonayo. marka degeeridana waa inaynu mar kasta ogaanaa in la dhimanayo oo nafta caashiyo kaltuuno isaga dambeeyay aada u mahadsan yihiin sidaa ay sheegtay iyaduba wuxuu lahaa ilaahay xaqsinaas iyo qofki uniika buu ahaa wuxuu lahaa tusaalooyinkii tilmaamo fara badan haddaynu isnaa caawda ka sheekeeyo waxaan maraynaya inaan la soo koobi karay. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. maxamed xaashi dhamac gaariye iyo faysal cumar macal mushtaag oo in yar ka horreeyey maalmuun ka horreeyey labadaba ilaahay godka ha uuro naxariistii janna firdowsaha ka waraabiyo samir iyo iimaanna dhammideen haynaga siiyo. halkay ka baxeenna dar kale oo khayr leh allah haynagu bedelo. maxamed xaashi dhamac gaariye ma ahayn hal abuur gabyaaya oo keliya, waxa uu ahaa aqoon-yahan haldoor ah oo hiboole ah oo ku talax tegay culumta afka, dhaqanka iyo suugaanta soomaalida. agwaan xidigiya buu ahaa oo uurbaadh shishe oo fog ku sameeya oo ku eega afka iyo suugaantiisa, hiddaha iyo dhaqankiisa, tix iyo tiraab, humaageynta afka, midabyada maldahantiisa, ekeeyayaashiisa, shareerayaashiisa, maakubidiisa, kinaayadiisa, qofayntiisa, xuskiisa iyo erey bixintiisa intaba. maxamed xaashi dhamac ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya waxa uu ahaa macallin. kolka uu soo hor fadhiisto ee uu doonayo inuu wax kuu sheego ama tix ha ahaata ama tiraabe, ilaahay hibe uu siiyey inuu kugu garba duubo inaad isaga raacdo oo aada afkiisa iyo gacantiisa, ficilkiisa iyo faraadkiisa aada kolba dhinac ula dillaanto oo aada u raacdo. goradda laalaadiso oo markaasi aada moodo inuu kuleeyahay ii kaalay oo iraac, ina mari halkaa maree, ina mari taa diidne, ina mari taa doonne, ina mari sidan iyo sidaa yeelle, ina keen tan iyo teer iyo too iyo tu kale qabanne. deedna adigoona sugeyn ayaa farshaxankiisa ilaahay hibada u siiyey uu kugu khasbayay inaad markaasi la fahanto waxa uu kaala hadlayo, deedna aada raacdo. taasaa waxay tahay ta keentay in goob kasta iyo geed kasta iyo cid kasta oo maxamed xaashi dhamac gaariye la joogo in markaasi agtiisa lagu soo xoogo oo dhinacyada laga fadhiisto. kolkii aanu jabhadda ahayn ee salam ahayn baanu isbarannay. maxamed xaashi dhamac haddaanu ahayn dhallinyarada halka uu joogo lagama waayi jirin xayn iyo kooxo dhallinyaro ah oo markaasi dhinaciya joogta. la higsaday ayuu ahaa, nin la higsadoo lagu daydo. gaariye waxaa gaar u ahaa oo aan aaminsanahay in qof kastaaba waa run uu odhanayo geesinimo, hadal caddaan, aan hoyashadiisa mar raba la gaban, isaga oo markaasi aragtidiisa iyo waxa ay la tahay dhacdada markaasi goobta taalle iyo waxa shidalka yaalla ku cabiraya oo ku sheegaya markaasi maanso ka turjumaysa dareenkiisa iyo sida isaga ula muuqato. 1970aadkii horraantoodii ayay suugaanta maxamed xaashi dhamac gaariye allah ha u naxariistee iba furanaysaa, sidii ubax hibadiisu ay afka u kala qaadaysaa. waxaynu xasuusanaa dhoolla tuskii silsiladii siinleyda carrada soomaalidu degto gobolkaa geeska afrika ka curatay
isagoo dhalinyaro ah hormuudkeedii buu ka mid ahaa waxaynu xasuusanaa maansooyinkiisii caanka ahaa ee xilligaasi aadu maansida la odhan jiray uurku baalle fad galbeed oo ka mid ah suugaanta loo turjumay afafka qalaad dhowr af oo qalaad bay ku turjuman tahay fad galbeed iyo maansida kale madax goodir gaariye waxa uu ahaa carooga dadka ciilan mar walba dadka dulmiga diidan xaqdarrada diidan cadaalad darrada diidan meel kasta iyo goob kasta iyo midab kasta oo ay leedahay hadday cad tahay hadday madow tahay hadday cawlan tahay hadday gaduudan tahay haddii hebel wado haddii hebel kale wado haddii hebello kale wadaan iyo haddii melheblo kale laga wado umay kala socnayn xuduudna ma laha maxamed xaashi dhamac gaaxi sugaantiisaa horaa caan u ahayd muqdisho la joogo waynu ognahay ciidankii ku meersanaa taliskii kale taliska ahaa ee xilligaas waddanka ka arriminayay carjuuqne ama afkaaga hayso ama afweyne raac ama afkooye aad ay taallay ayuu aamusi waayey 1987kii 1978 bay ahayd weli deelay ma curan markuu tinayay maansida la yidhaahdo qasab kuma balweyn karo qumanay xuduud iyo qaaradaha la kala xidhay qoqob bay geliyaan haddaan qabi lahaa taag quruumaha adduunyadu may kala qaloodeen qodaxdaan ka guri lahaa qoys baan ka dhigi lahaa qola sheegashana dhaaf iska daa qabiiloo qarankeenna oo idin qol yar baan u haystaa walee gabay ma quruxtiyo walee qarin dacaaraha dembi qaranka laga galay kama qariyo maatada walee gabay ma quruxtiyo yacni waxa uu cabirayaa sida aanu cidna aan ugu aaba yeelin maansadiisa suugaantiisa kaba casayaa ka mid ah aynu soo qaadan karo marka laga hadlayo inuu caroogii dadka baahan ahaa caroogii dadka saboolkaa inuu ahaa caroogii inta kolkaa la dulmiyaya inuu ahaa waa 1980kii magaalada muqdisho ayaa taliskii markaa jiray wuxuu yidhi waxaa imanaya wufuud caddaana oo waxaa loo dabaaldegayaa sanadkii carruurta yuneska iyo unisef iyo hay-adaha caalamkaa imanaya deedna waa in ciyaalka yaryaree derbijiifka ah ee baalashlayaasha ah suuqa laga ururiyaayoo la xidhxidhaa eesh qiyaasaka deetana wuxuu tirinayaa gabayga la magac baxay kullay sugaantiisa kuwa ugu qaalisan ku jira kabacaseye waa kabaacaseeye ceelgaabta jooga oo cabaasileeyay waxaa loo casumay sanadkii carruurta cardanow dabgaabi nasiib wanaag sugaanta maxamed xaashi dhamac gaariye way qoran tahay 99% waynu haynaa ninkii danaynaya ee sugaanta hodanka ee qaniga ah waynu helaynaayo waxaa laga heli doonaa meelaha kutubta lagu kaydiyo insha allah waxaynu soo qaadanaynaa markaa maxamed xaashi dhamac gaariye inuu sii wadaynaa sugaantiisii inagoo korkaxaadsanayna oo aan aada ugu talax tegaynin 1979 bishii December ayuu maxamed xaashi dhamac iba furayaa maansadii silsilada ahayd ee caanka ahayd ee dabkiya naarta ka kululayd ee deeley wuxuu ku bilaabayaa maansadiisii dugsi mala qadyaalay maansadaas inaguna inay ka qayb galeen in ka badan 80 halabuur maxamed xaashi dhamac waxa uu ka mid ahaa guddidii af soomaaliga waxaanu ahaa xubintii ugu da-da yarayd ee guddidaasi ka mid ka ahayd macallin buu ka soo noqday dugsiye aada u tiro badan oo ku yaalay ama ka mid ahaa waddankii kala daatay ee jamhuuriyaddii soomaaliya cilmiga biologiga ayuu ku takhasusay markiisa hore maxamed xaashi dhamac gaariye oo uu kaga baxay jaamacaddii la foole isaga ayaanu dhigi jiray aftahamanimadiisa iyo aqoonta durugsan oo afka u leeyahay baa markii dambe keentay inuu u wareego dhinaca
afka dhaqanka iyo hiddaha iyo suugaanta kuliyaddii la foole ayuu ka noqday maareeyaha guud ee laanta afka iyo dhaqanka iyo suugaanta maxamed xaashi dhamac gaariye ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye miisaanka maansada qawaaniinta iyo xeerarka abiya kala hufa albeeya ee kala haadiya maansada soomaalida gabaygeeda guurowgeeda geeraarkeeda masafadeeda gabaygeeda miisaanka la saaro ayuu aabbe u yahay maxamed xaashi dhamac gaariye ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye